deegaanka Rustenburg ee gobolka waqooyi bari dalka Koonfur Afrika ayaa maalmihii u dambeysay waxaa ka socday kulamo gaargaar ah oo yeelanayeen ganacsatada Soomaalida, shacabka South Africaanka iyo saraakiisha ciidamada booliska ee gobolkaasi, waxaana kulamadan looga arrinsanayay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka soo laablaabtay ee ka dhaca deegaanka gobolka waqooyi bari ee dalka Koonfur Afrika. kulamadan ayaa intay socdeen waxaa si weyn loogu lafagurayay sidii shacabka Koonfur Afrikaanka ah ee gobolkaasi degan loogu sameyn lahaa wacyigelin si aysan qayb uga noqon banaabaxyada rabshadaha wata ee kusoo laablaabtay gobolkaasi, isla markaana lagu dhibaateeyo dadka ajaanibta ah. Cabdixakiin Yaasiin Ugaaska, gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee gobolka waqooyi galbeed oo la hadlay warbaahinta qaranka, ayaa sharaxaya kulamadaasi iyo ujeedooyinka laga lahaa. xaafadan la yiraahdo Sondela waxa aad ugu batay inay dilka wabka maartay handadaada inay isticmaalaan mar walba tooriyo ama qoryo ama waxa ay dadka ku laayaan ama ay ku handadaan ayaa aad ugu batay. That's why ay markii ay iska kaashadeen saddexdan group oo kala nooc ah waxa suurta gashay inuu kulankan qabsoomo. kulankan runtii aad u arkaysan in maartay ka dhacay. mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee deegaankaasi oo lagu magacaabo Cabdi Maxamuud Qorane ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in dhibaatooyinka ay la kulmaan ay u badan yihiin xilliyada habeenkii ah oo ay xiraan goobahooda ganacsiga. waxyaabaha ugu khatarta badan leh waxa weeye anagu meel kale ma deganin, meeshaas gobolku noogu dhacayaan seexanayna. caawa markii la kala saxday dawladdii iyo dadkii wixii ay kala tageen habeen barkii niman dhalinyaro ah baa kugu soo jabinaya, darbiga jabinaya. anagii dad maskaakiin aan noqon maysan halkaas laga yaabaa in lagu dhameeyo. marka gobol islaam baan nahay, ilaahay baan isaga xirannahay. qofkii wax ku dhacana qadarka uu dhaco, qofkii badbaadana qadarka ilaahay ku badbaada. gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka waqooyi galbeed ee dalka Koonfur Afrika, mudane Cabdiraxmaan Ukun, ayaa sheegay in dhinacyadii kulamada wada qaatay ay isla garteen in wada shaqayn buuxda ay la sameeyaan laamaha ammaanka, ganacsatada Soomaalida iyo shacabka South Africaanka, sidoo kale ay noqdaan kuwo wada shaqayn yeesha si loo yareeyo isfahamwaaga soo kala dhaxgala xilliyada qaar. qodobadaas la garanay waxaa ka mid ah ugu horeyso in dadka deegaanka ay la soo xiriiraan wax alla wixii dhacda oo dhaco soo cusboonaada inay la soo xiriiraan booliska ama dawladda qaybaha ku shaqada leh inay la xiriiraan. tan labaad waxaan isla garanay in annaga ka community ahaan aan la shaqeyno booliska iyo dadka deegaanka. taasi sida hadda arkayseen oo idin muuqatay yani waxaan maxay ahaydeen dhex marto wada shaqeyn. gobolka North West ayaa waxa uu kaalinta koowaad uga jira gobolada ugu ammaanka badan dalka Koonfur Afrika marka loo eego 9 gobol ay Soomaalidu ku leedahay ganacsiyada kala duwan. Cabdillaahi Maxamuud Amiin, Cabdillaahi Qorshe, warbaahinta qaranka Soomaaliya, gobolka North West, magaalada Rustenburg, dalka Koonfur Afrika.